dhamaaday dagaal iyo buuq iyo marka jac ana hada ilaa hadda ma afrin hada so insha Allah wixii dhacay iyo soo oynay maskiinka oo iska hurtay daladiis iyo wixii dhan meel daawada muuqaalka ba ka soo aragtay waa Amiir Qurux oo sheegayso in ay jug xoogan wiilkeeda ka soo gaartay maadaama ayada iyo Tina Farey ay isku heleen meel supermarket ah ayna is arkeen Tina Farey oo dagaalka aad ugu bilowday. Amiir Qurux oo hadda ku soo dacweysay maadaama mobile ay Tina Farey soo turtay in wiilkeeda uu jug u geystay ama jug ay ka soo gaartay station-kan hadda Tina Farey ay ku xirantay. Si aan kula wadaaga fadlan nagu soo bir janaalka subscribe dhagan baleelka u furo muuqaalka like tala wixii fikrada ka qabtidna qaybta commentiga noola wadaag. dagaalka dalkaasi Malaysia ka qarxay Amiir Qurux iyo Tina Farey oo dagaalkooda aad u qarxay maadaama meel supermarket ah ay isku arkeen. Amiir Qurux oo soo socoto oo Tina Farey ay aragtay Tina Farey oo ku soo roortay oo aad u soo fakatay dagaalkana uu meeshaas ka qarxay. Amiir Qurux oo unugeeda wadatay unugeeda yar mobilka Tina Farey iyo wixii la isku tuuturayay uu miya uu ku dhacay sida ay Amiir Qurux ba ay sheegayso maadaama jug ay meeshaas ka soo gaartay unuga oo aad u ilmeeyay. Amiir Qurux oo sharaxday in ay isbitaal ay geysay Amiir Qurux oo haddana sheegtay in ay wiilka oo saldhiga booliska ay ku dhaheen in ay hadda ay waraaqad isbitaalka dhankaasi ka keento in ay jugta ku dhacday ay xaqiiqo tahay iyo run in ay tahay. dagaalka oo bara bulshadooda aad u qabsaday maadaama muuqaal la keenay maadaama mobilka ay Tina Farey wadatan dhulka lagu tuuraa haduubin lagu haayo dagaalkooda oo saacadooyin yar uu kooban baraha bulshada iyo barta social media oo idil uu qabsaday maadaama labadoodaba ay isku duufayaan dagaalka oo labadooda ka dhex qarxayna wiilka Amiir Qurux oo dhibaato yar ay ka soo gaartay halkaasi ambalaasna lagu wacay isbitaalkan ay ka daba ordaysay Amiiro oo sheegtay ayadoo basooman inaysan afurin maadaama wiilkeeda xaaladeeda ay ka warwaleysay jugtana ay hadhow isleedahay ama ay ku soo kacdaa ama ay dhibaato jugtaan ay ku noqotaa maadaama dagaalka labadooda markay isgaleen wiilka ooynayba la arkay ama jug la il daran. muuqaalkooda ayaa baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay aad u qabsaday maadaama dagaalka ay labadooda isdagaalayaan ay dowladdaasi Malaysia hadda ay xirtay Tina Farey maadaama la sheegay in ay Tina Farey dagaalka ay soo qaaday ay qofta Amiir Quruxna ay difaac iska gashay halkaasi ayadana ay difaac ku jirtay wiilkeedana hadda jugto ay soo gaartayna cadeen laga sugayo maadaama hadda Tina Fareyna xabsiga daaqilka loo dhex dhigay. soo dhawow muuqaala ayaan kula wadaagi doonaa daawada wixii fikir aad ka qabdidna qaybta commentiga noola wadaag gacantana Allah ku barakeeyo ilaa ka raan noqdo muuqaalkana like ta saar. soo dhawow daawade oynay maskiinka oo iska hurtay daladiis iyo wixii dhan meel ku dhacday waa buwaybo dagaalkii iyo wixii marka asii dhinaca laga haayaa ilaahay insha Allah la wax ma gaarsiiyo dhinac ma aragti oo wax loogu dhuftay aad markii laga taabay dagaal iyo buuq iyo marka jac ana hada ilaa hadda ma afrin hada so insha Allah wixii dhacay iyo wixii waxyaabo u dhaceen dhamaanta next video ani iga soo dhiga because video ganeed ku soo dirkiisa idoo dheeraana arinta way dheer tahay.